munaasabadani ayaa ahayd mid lagu shaacinayay Suldaan Cabdifataax Siciid Muuse oo ka mid noqon doona madax dhaqameedka Jamhuuriyadda Soomaaliland. munaasabadaasi waxaa ka soo qayb galay agaasimaha guud ee wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka iyo xubno ka tirsan golaha wakiilada Jamhuuriyadda Soomaaliland, salaadiin, ugaasyo iyo cuqaal iyo marti sharaf kale, waxaana dhamaantood alla uga bariyeen inuu mas'uuliyaddaasi alla ku asturo. xafladda maanta aan idinku yeernay ee shaacinta suldaanka ee haddaan Ibraahim Jibriil nahay ma aanaan talada goosanin. talada waxaan dhiganay inaan dan wadaaga ula tagno. maanta waan idin soo buddignay, halkaa waxaan idinku keenay talaan wada leen. waa muxuu ahaayeen aabihii waxaan jiray muxuu ahaayeen macallin marna idaacadda ku aan wariye waxaan jiray waxa weeyaan waa family ku caan muxuu ahaayeen xagga taariikhda. beelaha wadaage Siciid Cabdifataax Siciid Muuse waxaan leenahay beelaha wadaage muddaanu la soo rafanaynay sida idin sheegan nimankii ka horeeyba annaguna raalli baanu ka nahay isaga isku maalnaan haysan annaga dhexdayada qorfaayir ka jireen marka inuu kana suldaankaas waa suldaan wadaage annaguna hadda nahay beesha Ibraahim Jibriil waanu isku raacsanahay. suldaanka la soo magacaabay inoo keenay Ibraahim Jibriil haddaynu wadaaganahay inaguna waynu ku raacnay. halkan ka sheego Cabdifataax Siciid Muuse oo loo wado inuu noqdo suldaan wadaage. arrinkaas runtii waa arrin wax laga yiraahdo oo dambe aanay jirin mar haddii madashan la isugu yimi wadaaga ku dhan yahay waa mutafiq. halkan maanta waxaan u joognaa shaacintii suldaan Cabdifataax Siciid Muuse. arrintaas noo keentay Ibraahim Jibriil si buuxda oo boqolkiiba boqola oo boqolkiiba 100 ayaanu idinla qaadanay. salaanka bacdi halkan maanta waxa la isugu yimi shaacin Cabdifataax Muuse anigoo ku hadlaya magacayga iyo kareerkaba waxaanu leenahay Cabdifataax waanu ku qaadanay. waa Ibraahim Jibriil marka qaar boo beesha dan wadaagay ilaa doorto beel milhino waxna beelaa dan wadaagay waxa la ciido beeli halkaan akhrinay beelaa dan wadaagay afar beelood isu tigay dadka kale ka shaambuuri habay sheegtaa dan wadaag magaca waxa la dan wadaag dambay wadaagtaa. sidoo kale agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta jidadka Axmed Abubakar Maxamed iyo xildhibaan Cabdulaahi Muuse Cabdi oo ka mid ah golaha wakiilada Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa halkaasi hadallo dardaaran uga soo jeediyay, waxaanay ku dhiirigeliyeen sidii uga shaqeyn lahaa danta reerka iyo danta qarankaba. maanta la sheegay xafladan waa xaflad lagu shaacinaya markaa suldaankeena cusub ee Suldaan Cabdifataax Siciid odayaashii iyo salaadiintii baa jooga iyaga kulli ducada iyo dee magaranaysa ay u ducayn doonaan. laakiin suldaanka waxaa leeyahay kulli muhiimadda ugu weyn waxa weeyaan inaad tahay markaa suldaan la doonaya inaad markaa ka qayb qaadato sida dardaarankaa wada reegel loo sheegay in la isku hayo markaa beesha dan wadaagay oo isku hal beel. runtii maadaama ay tiradii dadkeenu ay badatay waa lagama maarmaan inaynu hoggaanno badan aynu samaysanaa waa lagama maarmaan. laakiin waxa muhiima hoggaamada aynu samaysanaynaa inaanay keeninta faraaruq ay keenaan isku xidhnaan iyo wada shaqayn. madax dhaqameedka beesha wadaage ee iga sii horeeyay dhammaantood way iga mudan yihiin. waxay iga mudan yihiin waayo aragnimo iga mudan yihiin intay shaqaynayeen hore iga mudan yihiin oo kow ka yahay suldaanka guud Suldaan Cali Saleebaan uu ku xigo chiefku iyo muxuu ahaayay hadday cuqaal tahay iyo hadday salaadiin tahayba waan la shaqaynayaa waan muxuu ahaayay talada la wadaagayaa waan u daba fadhiisanayaa waayo nin waliba intuu shaqada kaaga horeeyay ayuu kaa waayo aragsan yahay. wixii ay qaateen baa guddoominaya. horta waxaan guddoominayaa wixii ay qaateen suldaanku wuxuu leeyahay guddoon wax la yidhaahdo
waa guddoomiye horta haddaa isla qaadateen suldaanka cali masaalkiisana waanu shaacinay waa khadar maxamuud axmed khadar xeef oo telefishinka qaranka jamhuuriyadda somalilan magaalada hargeysa.